xildhibaan Muuse Ibraahim oo kamid ah mudanayaasha golaha guurtida ayaan halkan kula kulanay daawadayaal xildhibaan waxaan jeclaa arrimaha dhinaca doorashooyinka aanu wax ka weydiino waxaad ogeyd in xisbiyada mucaaradka ahay inay dhinaca doorashooyinka qabsoomidooda iyo muxaafadka aan dhahdo kii shalay ka hadlay siyaabo kala duwan oo uga hadlay waxa isku dhawaa xisbiyada mucaaradka fikirkoodu isku dhawaa oo aragtidoodu way isku dhaweyd waxaana ahayd aragtidoodu in doorashadu in muddadan doorashada aan idhaahdo in abaaruhu jiraan iyagoo xagga abaaraha ka eegeen oo waxay yiraahdeen doorasho nooma qabsoomi karto maadaama dadkii sidan yahay oo xaalad abaar dalkii ay ka jirto xisbiga muxaafadka oo kale way ogtahay waxa isna yiri inuu commissionka nuu deynina dhinaca commissionka maadaama hadaba dalkii abaar ay ka jirto xildhibaan aad la socotid sidee doorasho ay noogu qabsoomi kartaa bismillaah way fiicnay doorashadu dalka inay ka dhacdo waqtigii loogu talagalay runtii arrin muhiim ah bay ahayd in doorashadu waqtigeedii ku dhacdo waana wanaagsaneyd laakiin maanta maxaa yaala dalkeeni maxaa ku soo kordhay dalkeeni waynu ognahay abaarta baahsan ee ka dhacday waa mid aan indhaha laga laaban karin waxaanu leenahay markaa xaaladdu markay nooca isu bedesho waxa loo baahan yahay in tala kale la keeno golaha guurtida iyo xusbiyada iyo commissionka dhammaan waxa la isku raacsanaa waqtiga inay dhacdo iyo madaxtooyadu laakiin maxaa maanta taagan dalkeeni maxaa ka taagan waa in qof kasta oo muwaadin isweydiiyaa dalkeeni maanta xaaladeebu ku sugan yahay maxaalad doorasho ku sugan yahay mise xaalad aan doorasho dhici karin maanta markaan soo gaabiyo wuxuu ku sugan yahay xaalad aan doorasho dhici karin sababtu waa maxay dalkeena 70% waxa weeyaan xoolo dhaqato waa reer guura waa dad guurguura oo marba meel u kaca dadka maanta waxa kumashku cadeeyeen oo cid kasto xoogaale cadeysay in 7% ay ka maqantay goobtii ay kaarka qaadan lahaayeen waayahay waxa inta dheer maanta biyalaanta ka taagan dalka iyo baadlaanta ka taagan oo hadda dadkii aad arkayso inuu dadkii bilowday inuu u dhinto haraad waxaan leenahay annagu aan lahayn xusbiyada kan baahagsan iyo ka baahagsan anagu waxaan xildhibaano guurtiya dadka dhex baan u nahay laakiin maanta dalku wuxuu u baahan yahay ummaddu wax badbaadiyo meeshaba ma taala in doorasho laga hadlo saddex xusbi inay ka hadlaan cid kale inay ka hadasho waa in laga hadlo kaliya sidee loo badbaadiyaa ummadda Soomaaliland saas baan rabaa كل ورئيسكنا إنه سو كوبي دونا حلبان واحد شرطة مثلاً حرر أنت بدن برلمان قاين سيان وحرر وبدن دين عفرينت وإذا كلفت جينا يتصامر أو أدنى حكومة ده تسجد بسان حرر كاس واحد أنت بدن هو دين عفرينت حرر كلا دين عرمها بالشدة أنت بدن مثلاً حرر مثلاً دين عجور كوكله حرر حكمة أنت توك كله حرر كمحن كورا هذا وحبر الشدة كله حرر كاس أنت بدن قلها يكمل بدنا marka xeerka caynkaasa ma qolooyinkan soo curinayaan golihii horkeenin ma dhinacii xukuumaddan ka iman xeerkan dhinaca arrimaha bulshada ka hadlaya maxaa golaha ka hortaagan inay golihii inuu yimaado ay ka doodaan saa marka xukuumadda ugu gudbiyaan way fiican tahay xeerarka wadanku inay dhammaan soo maraan dejinta labada gole laakiin taas waa arrin aad moodo inay gaabkeeda leedahay taas su'aashaas waxaan jecelahay in bal shir gudoonka la weydiiyo iyaga ayaa golaha maamula waana arrin muhiim ah inay hor yimaadaan xeer kasta oo dalku leeyahay wixii aan ka ahayn xeerka maaliyadda oo ay gaar u leeyihiin golaha wakiiladu marka taas waxa weeyaan arrin muhiim ah laakiin sidaas awgeed waxaan u lahaa la weydiiyo qolada shir gudoonka su'aashan xildhibaan kugu soo gabagabayn doona waxa weeye maanta beeshii caalamku gaar ahaan qolooyinkan daneeya arrimaha doorashooyinka qaran baynu nahay waxa jirta inaynu ka maarmayno moogtay in deeq bixiyaal waxooga xagga ay nooga soo tuuraa marka ma kula muuqataa sanduuq baa jira la yiraahdo sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo aynu samaysanay marka ma kula muuqataa inaynu maanta ka maarmi karno waxyaabihii xagga kharashaadeen la nooga soo tuuri jiray oo dhinaca doorashooyinka kabkii مثلا lagu kabi jiray oo kale maadaama aynu qaran nahay inagu bacdama aynu dad muslim nahay marka hore deeq bixiyaheenu waa Ilaahay oo kaliya عدي كلا إنك واحد إنه جيسة كابسة والله بهاي لكن ظروف تتمين ما أنت عدو ولا بقى إنه كحساب تنتو أيام مهمة وظروف أن ده لقى لابن كرين ما أنا هو حين نجمل أولي ما أنتو إنه لين هاي إنك أيام وحكن دوري نئ
waa wax yimi weeye mar hadday wax siman yimaadaanna waxa kaliya loo baahan yahay qolyaha aad sheegayso iyo Soomaaliland iyo cid kastaba in tala kale la soo noqdo markaas waa muhiim waa tahay aad iyo aad baad mahadsantahay chance-ka siisay xildhibaan aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa aad iyo aadna waad mahadsantahay